ganacsatada waxaan u soo jeedinayaa oo aan ku dhiirigelinayaa ilaahay hortiis intii aad fiirsan lahaydeen hanti kale nin kale oo ganacsada dad dhaqaale haysto meel banaan ka imanaya oo maslaxadooda darteed ku kharash gareynaya in ay abuuraan ama noo beeraan xildhibaan iyo madaxweyne oo hadhowna idinka aad noqon doontaan kuwa yani kharash ugu dambeeya bixiya oo saameynta idinka idin soo gaari doonto fadlan idinku si xalaal ah oo xaq ah idinkoon dad gaara wadan maslaxadda guud darteeda hantidiina u geliya oo ka warqaba electionkan iyo doorashooyinkan nabadoonnada iyo hoggaanka dhaqanka meesha wax marsiinayaan hooyooyinka xanuunsaday oo ku dhibaataysnaa ama burcadbadeed ama al-shabaab ama magafe iyo saxaraha u dhaxeeya Liibiya iyo Suudaan ama badda cas awlaadooda ku waayay ha ogolaanina hooyo kale dhibkii amarteen inay martaa ogolaanina culimada islaamka ee diinta yaqaana fadlan ka hadla u imaada la fariista oo marka aan saas leeyahay waxaan ka wadaa qof kasta oo jifidaada intaas u sheeg dardaaran guud lama baahna in qof kasta uu guriga yani xildhibaanka uu leeyahay khusaysaa inuu toos ugu tago ha u tagaan fadlan culimada u sheega hoggaanka dhaqanka in sidii hore aysan sax ahayn laaluushka waxa uu yahay xaraan sida uu diinta ugu yahay dhaqanka sida uu yahay sida fiican waa taqaaniina u tilmaama oo arintaas marxaatiha ka noqonina ummadiina oo godku sii dhacaysa dhalinyarada jaamacadaha ardayda dhigta kuwa ka baxay ee young professionals la yiraahdo ee shaqo la'aanta ay hayso oo 70% ummadan ah masiirkiina in sidii saylad suuqa lagu kala gato ha ogolaanina billaahi calaykum istaaga soo dhaxgala hay'adaha amniga madaxda amniga saraakiisha amniga ha ogolaanina waxa lagu jiraa xilli siyaasadeed ha ogolaanina in la dayaco amniga aad saraakiisha ka tihiin oo ummadda aad mas'uuliyadda qaran uga haystaan ha ogolaanina ilaahay hortiis kuwa xisaabtama madaxdiina waqtigan baa la joogaa ka fakara jaanisiya dadka ummadda reer Puntland in ay si open ah oo dastuurka uu ogol yahay in ay ku dimaan garayaan ku dalbaan xuquuqdoodaas oo ay banaanada soo istaagaan ogolaada oo waliba ku ilaaliya amnigooda inaan khalkhal galin intaas ayaan farayaa dadka reer Puntland guud ahaan saxaafadda waxaan farayaa mas'uuliyad baa idinka saaran mas'uuliyad ilaahi ah baa idin saaran idinka guri kasta gala oo islaam walba iyo oday walba iyo qof kasta oo dhalinyarada guriga ugu gala u sheega waxa saxda ah ka soo qaada dadka fariimaha saxda ah gurigooda ugu galiya mas'uuliyad baa idinka saaran iyadana soo farshaqo fiican baa wadan Allah idinku guuleeyo farintaas ayaan dadka reer Puntland aan u jeedin lahaa ilaahay waxaan ka baryayaa in uu noo fududeeyo in aan helno baarlamaan ugu yaraan wax uun ka duwan wixii aan soo mari jirnay oo wadada toobiyaha saxda ah nasiya dhaqdhaqaaqa kala beerna hawshaas waxaan rajaynayaa reer Puntland inay kala shaqeyn doonaan kama rabna dhaqaale waxba kama rabna kaliya in ay fariinta qaadaan oo ay nabadoonkooda iyo ismkooda gaarsiiyaan intaas kaliya ka rabnaa haday intaas sameeyaan hawshan waa israaciisa